aniga shirkani qof ahaan ay ahaanshahayga macno badan buu leeyahay waayo 12 sano ugu dambeeyay nolosheeda waxaan ku qaatay inaan dhex socdo dhex safro la shaqeeyo u shaqeeyo dhalinyarada Soomaalida meel kasta jooga waxaan waday dadaalo maaragtay aan ku rabay inaan ku abuuro wacyi sareeya iyo ku dhac iyo handis oo ujeedadeedu ahayd in qofka dhalinyarada Soomaaliga uu aamino in talentka iyo hibadu ay tahay universal in kartidu ay tahay caalami meesha doonto joog dadaasho dadaalkaaga natiijadiisa waad helaysaa inaan la kala xigin guusha iyo libinta iyo sareynta iyo horu socodka in qof kasta adduunyada meesha doonaha kaga noolaadee uu helayo siduu u fikira in leeg dadaaladaas uu toos shirkan ula xiriira dhammaan mas'uuliyiinta halkan inagala qayb qaadanaysa shirka dhalinyarada Soomaalida jigjiga inooga qabsoomaya oo ugu horeeyo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar madaxa xafiiska dhalinyarada iyo isboortiga ee dawladda deegaanka Soomaalida ku xigeenada xafiisyada TVET-ka iyo sayniska technology iyo curinta maaragtay waxbarashada xafiiska maaliyadda iyo horumarinta iyo xafiisyada kale ee dawladda dhammaantiin si weyn baan idin salaameynaa intaas kadib waxaan jeclaystay idin yar dul cararsiiyo shirka dhalinyarada Soomaalida halkuu ka soo bilaabmay xaggu ku socdo iyo qorshuhu wuxuu yahay shirka dhalinyarada Soomaalidu waa barkulan loo sameeyay oo ujeedada ka dambeysay ahayd in la abuuro bar ama goobo ay dhalinyarada Soomaalida ee dunida dacaladeeda ku kala fariirsanay ku aqoon wadaagaan xirfadaha xikmadda aqoonta iyo aqliga ku kala qaataan isla markaana iyagu laftigoodu isku bartaan xikmad baa odhan jirtay markaynu isku nimaano wax weyn baa dhici kara marka in dhibcaha fariirsan ee roobku markay dhulka isugu yimaadaan ay daad abuuraani waa dabeecadaynu la qabsanay sidaas la mid ah marka dadku isku yimaad dad kala xirfad duwan kala aqoon duwan kala ra'yi duwan kala fikir iyo faham duwani fursado waaweyn baa abuurma marka ujeedada shirka laga lahaa taas ay ahayd shirku sida caadiga waa shir sanadle ah sanad walba wuxuu ka qabsoomaa magaalo Soomaaliyeed oo East Africa magaalooyinka Soomaalidu ka degta kamid ah ujeedadiisuna waxa weeyaan in dadka dhinacyada kala duwan ee nolosha change-ka ama isbedelka macnaha la ka wada la isku keeno diiradoodana lagu koobo hal mowduuc sanadkiiba marka sanad kasta oo uu shirku dhaco waxa lagaga hadlaa hal mowduuc sanadihii hore kii koowaad wuxuu ka dhacay maaragtay magaalada Hargeysa waxa lagaga hadlayay sidee fursado loo abuuran karaa abuuro fursadahaaga sanadkan oo inooga qabsoomayo magaalada caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga ubucdiisu ama arinta laga hadlaya revolution-ka ama kacdoonka teknolojiyada ee adduunka oo dhan xareeyay sideen uga faraqabsan karnaa wuxuu si toos ah u saameeyaa qaabkan u noolnahay qaabkan u fikirno iyo qaabka shaqooyinka u qabano sidee markaa momentum-ka cusub looga faraqabsan karaa sidee technology-ga aan ugu isticmaali karnaa si ay nolosheena u fududeyso waxa iyaduna in la xuso mudan oo aad iyo aad muhiima in shirkan ujeedooyinka aan ka leenahay uu tahay inuu kulmiyo leaderska ama dhalinyarada hoggaanka u haysa dhinacyada kala duwan ee nolosha isbedel macnalana ka dhex sameynaysa bulshooyinka ay la nool yihiin intaas uu shirku kuma koobna maadaama aan ka hadlaynay technology sanadkan horumarka technology-ga waxaan isku keennay ku dadaalnay oo tacab iyo tamar badan naga gashay inaan isku keenno dad inaga qisa inaga dhaxayso oo ama jinsiyad ama dhaqan ama dadnimo ina mideyso dadkeeniya oo aan relate garayn karno la xiriiri karno oo aan sheekadeena ka dhex arki karno iyaguna sheekadooda inaga dhex arki karaa laakiin ka shaqeynaya masraxyada ugu waaweyn ee caalamka ee technology-ga waxaan engage garaynay sanadkan oo nagala qayb galaya shirka 10 dhalinyaro ah oo Soomaaliya oo boosas muhiim ka haya shirkadooda adduunyada ugu waaweyn ee technology-ga waxa kamid ah Apple waxa kamid ah Microsoft waxa kamid ah Facebook waxa kamid ah shirkadda diyaaradaha sameysay Point waxa kamid ah Amazon waxa kamid ah Shopify shirkadaha noocaas oo kala ah ee hoggaanka u haya maaragtay technology-ga adduunka dhalinyaro strategic positions ka taagan meelo muhiim ka taagan boosas sare ka haya
isbedel macnalana ka dhex sameynaya shirkadahaas ayaa shirkeena laga qayb qaadanaya marka dadkaas waxaynu u engage kareen wax kale ma ahayn hal shay bay ahayd waxay ahayd in kaliya la abuuro inspiration haddii technological platformska dagallada technology-ga haddii aan moodayno uun meel waqtiga lagu khasaarayo haddii ay nala tahay uun meel dadku ku xidhiidhaan ogowo qof dhalinyaro oo Soomaaliya oo kula jinsiya ayaa xagga dambe u fadhiyo soo dhisaya maaha aalad qof qalaadi uu leeyahay uun qof adigu aad tix raaci karto baa xagga dambe u fadhiya inspiration kaas ka aan rabno inaan abuurno shirka waxaan ugu talagalnay inay ka soo baxaan tilmaamo iyo tabo dhalinyaradu uga faa'iideysan karto technology-ga intaan kuma koobno dadkan shirka isku keenay waxa jooga dad oo aan soo marti qaadno ee nagala qayb qaadanaya dad saameyn weyn bulshada dhinac ku leh Soomaalida dhinacyada kala duwan ee nolosha saameyn ku leh haday tahay madadaalada iyo entertainment-ka masraxa fanka ee Soomaalida dhanka entrepreneurship iyo halabuurka ganacsiga waxay nala jooga Bashiir Dheere nin dhalinyaro oo ka soo bilaabay noloshiisa meel aan la maleyn karin haddana qof isagu iska dhigay millionaire rangareeyo company uu isagu iska leeyahay oo adeegyada hay'adaha ugu waaweyn adduunka wax kale oo inala jooga dhalinyaro hogaamiyayaal oo hogaamisa dhinacyada kala duwan ee nolosha inta waxay noo dheer oo maaragtay nagala qayb qaadanaya shirkeena dhalinyaro halabuuro ganacsi sameeyay iyagoo isticmaalaya technology tech based entrepreneurship dhalinyaro badan baa halkan fadhida reer jigjiga iyo deegaanada kale Soomaalidu degtaba ka kala imanaya oo abuuray isbedel macnale masraxa ganacsiga Soomaalida ka dhex abuuray iyagoo isticmaalaya technology waxa kale oo nagala qayb qaadanaya walaalayaal shirka dadweyne meelo kala duwan ka yimiday inta Soomaalidu degtaba waa laga kala yimiday inkastoo ay xadidayso maaragtay xeerasha dawladda Itoobiya ka leedahay xakamaynta caabuqa COVID-19 haddana waxa maanta inoo suura galaysa inaynu daafaha dunida Soomaalidu ku nooshahay ku gaadhno habka tabinta tooska ah ee live-ka oo ay naga taageerayso shirkadda Astaan TV oo halkan iyaguna fadhiya waxaan ku soo gabagabeyn lahaa aniga shirkani qof ahaan ay ahaanshahayga macno badan buu leeyahay waayo 12 sano ugu dambeeyay nolosheeda waxaan ku qaatay inaan dhex socdo dhex safro la shaqeeyo u shaqeeyo dhalinyarada Soomaalida meel kasta joogaan waxaan waday dadaalo maaragtay aan ku rabay inaan ku abuuro wacyi sareeya iyo ku dhac iyo handis oo ujeedadeedu ahayd in qofka dhalinyarada Soomaaliga uu aamino in talentka iyo hibadu ay tahay universal in kartidu ay tahay caalami meesha doonto joog dadaasho dadaalkaaga natiijadiisa waad helaysaa inaan la kala xigin guusha iyo libinta iyo sareynta iyo horu socodka in qof kasta adduunyada meesha doonaha kaga noolaadee uu helayo siduu u fikira in leeg dadaaladaas uu toos shirkan ula xiriira ka waxay baray dadaalka 12 sano aan soo waday in dadka dhalinyarada ee Soomaalida dunida joogta ay yihiin dad abuur ahaan halabuur u samaysan oo inay challenge gareeyaan waaqica iyo sida nolosha u taalo inay challenge gareeyaan oo ay isku dayaan nolol iyaga u shaqeynaysa inay abuurtaan inay yihiin taas waa tasaamaxday markaa inaan ku fikirno in shirkan uu inoo qabsoomo una isku keeno dhalinyarada Soomaalida ee dunida ku kala fariirsan laakiin isbedel macno la ka wada hareeraha nolosha waxaan ku soo gabagabeynayaa shirkan qabsoomidiisu ma ahaynuun dadaal iyo karti isku filan oo aniga iyo saamiye dadka nala shaqeeya ka yimid dadka Soomaaliyeed ee dunida jooga oo dhan baa midba qayb uu ku darsaday qabsoomida shirkan waxaan ugu horeysiinayaa si loo kala horeeyay maanta waxaynu marti u nahay dawladda deegaanka Soomaalida waxaan aad ugu mahadnaqayaa madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo si buuxda nooga taageeray shirkan na dhiiri geliyay isla markaana nagu sharfay inuu shirkan nagala soo qayb galo nalana joogo adiga dawladdaada iyo dadkaagaba si buuxdaan kuugu mahadnaqaynaa halkan waxaan ku baranay marka laga yaabo meelaha qaar inay yara adag tahay inaanad mas'uuliyiinta dawladda helin halkan waxaan ku aragnay mas'uuliyiin annagana soo raadisa oo tira halkee wax maraya halkeed wax marinaysaa maxaa qaldan maxaa saxsan maxaan qabanaa maxaan la qaban oo annagana follow gareynaysa taas waxay sheegaysaa sida ay iskugu xidhan yihiin dadkii iyo dawladda deegaanku waxaan ku soo gabagabeynayaa dhalinyaroy tartan baa dunida ka socda hubkuna waa han sare in laabtaadu ay buuxdo
oo ay ka buuxdo karti kalsooni maskax furnaan han xirfad iyo garasho furan saddexdaas maanta huba waxa la inaga rabaa masraxa dunida lagu tartamayo wixii aan la tagi lahayn intaan qaadano inaan ka dhex tartano waxaana tusaale fiican inoo ah dhalinyarada liiska dheer ee aan tusi doono ee shirkadaha waaweyn ee technology-ga adduunka ka hawlgala aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaad waan idin mahadnaqayaa salaamu calaykum aad iyo aad baan u mahadsantihiin